عدة دونت الله حرير كرتو عدة دونت الله ترشن كرتو حر أي تهاي إن دواكن وريجي عرب يميل والله إما يوجا إن صحيح ماي إن إمك وحى بابليكا صدح أيتم مركا إن إما يوجا وحي هاي شيز إسفهان إما يوجا agreement كويك القدسين إما يوجا حويان يعني والله هذا الله وحويان بقص نص صعدة وحينان كور ورينو نار قرقد قرين أينو سمعنا مركا سكوماي حنين سفر كي مدحور بيحي او تغي جيبوتي iyo MOU muddo badan baan ka soo shaqeynayni naguna extreme command joogna aqoonsi baan doonaynaa idinkuna unity bay doonaynaa ee doonaysaa waxaanu kaga faa'iidayno ka helayno inaan Soomaaliya la sii korno runtii ma jirto دكتور عيسى كيد محمود وزيرك وزارة أهرمها الدبدة يسكاشك عالمي أي سوماليلان وصفر الشقاء كتشوغ دالك فرانسيسكا هيا وحا وكور رمي صفر كالشقاء وكتشوغ دالكاسي هشيسكي سافقراد إدح مراي سوماليلان يثوبيا يوصدو كلا وضا هذا لضا ودحيا سوماليلان إيو سوماليا هالك سدو كلانا وكاها الله ديمقراطية دا جمهورية سوماليلان يارهمها دونوشوينكا وقورين وزيرك وزارة أهرمها الدبدة يسكاشك عالمي أي سوماليلان دكتور عيسى كيد محمود waxa uu isdultaagay safarka shaqo ee uu ku joogo dalka Faransiiska waxyaabaha uga qabsoomay iyo sidoo kale cid uu la kulmay safarkaygii shaqo aan France ka lahayn runtii waxa safar shaqo aad aan ugu guuleysanay meel wal aan tagnaa sanadka oo khudbad weyn ka jeediyay aan ku sharaxay qadiyadda Somaliland hadday tahay wasaaradda arrimaha dibadda hadday tahay maxaan ku dhahdaa xildhibaano aan la kulmay aad iyo aad bay runtii u wanaagsanayd in halkan maanta imaado waxaad moodaana in ay tahay waqti habboon inaan halkan imaado aad ba guul weyn baan kasoo qaadnay runtii aniga iyo safiirkeena cabdiraxmaan oo runtii shaqo badan sameeyey oo waxaan sii diyaariyey waana ku guulaysanay guul aad iyo aad fara badan dhanka kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo wax laga weydiiyay heshiiskiisa afgarad ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia ayaa sharaxaad dheer oo faahfaahsan ka bixiyay MOU-ga aynu saxeexnay imika waxa public ah saddex item number 1 haddii ay Ethiopiana aqoonsan weydo right away marka ugu horeysaba annaguna siin mayno base siin mayno naval base siin mayno waxa kaloo ku jira in ugu yaraan 10% ay u soo weeciso baamishirkii iyo wixii ay Djibouti marin jirtay waxaan filaynaa inuu noqon doono 30% haddii la yiraahdo shaqooyin badan buu abuuri doonaa xiriirkeena iyo aad u sii wanaajin doonaa marka MOU wuxuu yahay heshiis isfahan MOU agreement كويك القدسين MOU waxa weeyaan aan wada hadallo markaan waxaan haysanaa Somaliland file in haysanaa oo oranaya waxa Somaliland ay doonayso ay ugu saxiixayso Ethiopia agreement-ka waxa weeyaan boqos noo soo socda waxaynaan ka warwarin oo naan gargad garayn aynu sameynaa madaxweynuhu waa kii magacaabay guddi farsamo waxa ka dambeyn doona guddidii kale siyaasadeed baa ka dambeyn doona marka wixii ku qorna MOU waxay noqon doontaa wax meel laga dhaqaaqo laakiin waxyaabo badan oo isbedelaya ku jiri doona hadday noqoto waqtiga hadday noqoto si lacagta Ethiopia iskaga bixinayso hadday noqoto distance-ka aanu siin doono marka waxa weeyaan wax aad iyo aad aan dowladda Somaliland danteeda
ka fikirayso iyo danta ummadeeda madaxweynahana uu hogaaminayay marka mid baan rabaa inaan meesha ka saaro oo ay ummaddu fahamto waxaa jiray shirkii Jabuuti ay isku yimaadeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ka Soomaaliya iyo ka Jabuuti dadku waxay fahansan yihiin oo moodayaan shirkaasi markii la isku fahmi waayay inaan markaa usoo duumay Addis Ababa may ahayn 4 bilood anigoo wasiirka arrimaha dibadda ayaan ka shaqaynayay MOU-dan maanta suurta gashay marka iskuma xidhnayn safarkii madaxweyne Biixi uu tagay Jabuuti iyo MOU muddo badan baan ka soo shaqaynaynay marka maaha un reaction ka dhashay shirkii Jabuuti sida ay dadku dad badan aaminsan yihiin wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland Dr. Kayd waxa uu ka hadlay wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale waxa uu ka qorshaa xukuumadda Somaliland marka ugu horeysa Soomaaliya dalka la yiraahdo waxaan isku daynay inaanu yeelano xiriir walaaltinimo أنا أوكي نقول extreme كمان شغلنا أقوس بان دوننا يدكونا unity بيد دوننا دونيسا مركا أنت صدق طبعا سنة وجود ميسي والله إنه كل شيء نارا ما يصير تجين وقارب تشوفه دين مركا إن وضح لي هراء دمالي مهدان لك كلمين honor grain waxaanu kaga faa'iideynaa ka helayno in Soomaaliya la sii korno runtii ma jirto marka waxaanu nahay dad isku tashaday baynu nahay waxaanu nahay dad 30 sano dalkoodii dib u dhisay waxaanu nahay dad aaminsan inay wax qabsan karaan waxaanu nahay dad laga dilay intaasoo 100,000 oo Hargeysa lagu laaliyay waxaan noqonay qaxooti noloshii ay Soomaaliya ina baday daraadeed waxaanu isku daynay markaa inaynu si walaalnimo isugu nimaadno inaynu war dhageysa annaga xidhiidhka iyo Jabuuti naga dhexeeya eega laba dal oo Soomaaliyeed ayaynu nahay naaqoonsada oo xidhiidhka mid la midi hay naga dhaxayo laba dad oo walaal ah in noqono sida xilka loo Jabuuti sida loo Ethiopia Xasan Sheekh waxaad moodaa markuu arkay Somaliland inay cidda doonto la xiriiri karto cidda doonto la tashan karto xor ay tahay dawaakan wareegaya carab iyo meel walba jawaabta la siiyaa waxay ahayd sovereignty-ga Soomaaliya ayaa la eranaya marka sovereignty-ga Soomaaliya kuma jirto ka Somaliland waayo isaga u baahan dalkiisa inuu nabad ka dhaliyo isaga u baahan dalkiisa inuu ka ilaaliyo al-shabaab iyo waxaad moodaa imka markuu adduunyada la hadlayo wuxuu ku yiraahdaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia wuxuu iga jeedinayaa la dagaalankii al-shabaab waa propaganda khalad ah isaga ayaa abuuraya in sii kordho mushkiladda ka haysata al-shabaab waayo maalin walba masaajid buu tagaa wuxuu promote garayaa jihadism wax la yidhaahdo wuxuu yidhahdaa aynu la dagaalano Somaliland iyo Ethiopia isaga ayaa dalkiisa iyo meel walba keenaya xasiloon daraan al-shabaab isaga ka mas-uula waxaan oo dhan Somaliland waxay kartay in ay ka celiso dalkeeda al-shabaab iyo extremistka islamistka wax la yidhaahdo
waxa keenay taa ummadda reer Somaliland oo ugu jirta dagaal ay kaga hortagayaan had iyo jeer oo ilaalinayaan dalkooda intaasoo kuna qof ay naga dhintay intaasoo sanadood ayaynu dalkeena dib u dhisanay oo wixii ayna gaadhsiin Soomaaliya aynu dib uga soo kabanayni marka ma jirto waxaan la idhaahdo sheekadan xasan sheekh la cararayo meel walba la marayo sovereignty-ga kiisa ha ilaaliyo dalkiisa ha xukumo dalkiisa hadduu maanta admisaday ka baxda maanta u collapse garaynaya isagu waanu ku mashquulaa dalkiisa oo aan ku mashquulin Somaliland way socotay waana soconaysaa waxa la yaala wax horjoogsan karana ma jirto ummadeeda ayaa doonaysa in ay noqdaan dad xor ah iska daafacaya wax walba ilaa iyo wax waloo dhacaba Somaliland waa diyaar inay ka hortagto. ciise kayd maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa sheegay in ay qabsadeen looyaro caalami ah oo Somaliland ka caawiya sidii ay aqoonsi buuxda u heli lahayd. maxkamadda adduunka looyaro international qabsanay waanu bilownay maxkamadda adduunka oo kaliya maaha maxkamadda kale jira waxaa jira Afrikaan iyo qaar kale waxaynu hayargaleen looyaro expertise badan u leh legal case ka Somaliland oo gacanta ku haya oo dhameeyay legal case Somaliland. Legal case ka Somaliland wuxuu yahay ka ugu muhiimsan ee ugu adag ka Kosovo ka adag legal case ka Somaliland waa very strong in midba rabayna ogaataan legal case kaliya waxa ma tarayo waa inuu yeelana political case marka heshiiska nimka aynu la yeelanay Ethiopia wuxuu dhammaynayaa heshiiskii ahaa legal case iyo political case labadii isku keenaya marka halkaas ay guush ka dhalanaysaa. wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland waxa uu ka hadlay dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka iyo xeerkii u dhawaan madaxweynaha Somaliland saxeexay ee markaasi uu dhaqangeliyay ee ku saabsanaa doorashooyinka dalka ku soo foollay. gabagabadiina wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. ciise kayd maxamuud waxa uu fariin u diray shacabka jamhuuriyadda Somaliland. dimuqraadiyadda iyo waxba waynu wadnaa baad aragtay maalintii dhaweydii madaxweynuhu saxeexay heshiiskii in electionka taas waxa ku tusaa inaan nahay dad moogta bislaaday unlike Muqdisho iyo waxankaasa waxaanu u nahay example the Horn of Africa geeska Africa maanta haddaad ugu code haddaan ishaada la sawirin ma codayn kartid marka dalkeenu wuu wanaagsan yahay maanta waynu wanaagsanay بريتنا ونكسي ونعكسان دونا ما أنت ونعكسني بريتنا ونكسي ونعكسان دونا وحن وزير كريمة بدأ عن وحن إن جوب أبنية وان أفضل Somaliland روح أوريكرا إن ليكرا إن سوشيال ميديا وانو دلكيسة وهالجنا وضجالما marka aad bay u mahadsan intii ka qayb gashay waxaan laakiin ku goobaabinayaa inaad si laba jibaartaan tan waxay u haystaan wax